kormeerkan taliska booliska Hirshabelle maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe kan degmada Jowhar iyo taliska qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxay ku sameeyeen kontaroolada laga soo galo magaalada Jowhar oo ay ka howlgalaan ciidamada booliska Hirshabelle. ujeedada kormeerka ayaa ahaa mid lagu kuurgalayay dhanka ammaanka waxyaabaha kaga qabsoomay ciidamada booliska maadaama muddo sanad ah laga joogo markii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ku wareejiyeen magaalada Jowhar amaankeeda ciidamada booliska Hirshabelle. kormeerka kadib ugu horeyn waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha maamulka degmada Jowhar Cismaan Maxamed Mukhtaar Baari. waxaan qiraynaa maanta howlgalada ayaanta aan wadnay waxaan leeyahay toddobaadkii xaqiijinta ay nala tahay aniga Cismaan ahaan nabadgelyada aan ku xaqiijinayno waxaan tagnay aagaga ama magaciisi goobaha mar hore lagu kala wareegay militariga ka wareegay booliska ku wareegay waxaan qiraa booliska iyo nabad sugidda aad ugu tagteen taliye in ay howl badan ay ka qabteen. dhinaca kale taliyaha ciidamada booliska Hirshabelle Korneel Xasan Dhiciso Xasan iyo taliyaha ciidamada qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya kana howlgala deegaanada Hirshabelle General Ahmed Maxamed Cali Sowtreedisho ayaa sheegay in ciidamada booliska Hirshabelle ay ka soo dhalaaleen sugidda ammaanka magaalada Jowhar ay mudan yihiin in lagu wareejiyo degmooyinka iyo deegaanada kale ee Hirshabelle. waa sida uu sheegay waa kulli waa sida uu soo qancay soo argay waxaana diyaar u nahay hadda goobaha kale uu sheegayo leeyahay waa ku wareejinaa ciidanka waxa jacayl sidii in beledweyno kale xaaja cali oo kale goobahaas badan uu sheegayo ma hadda kale tood ayadana waxaan diyaar u nahay inaan la wareegno waxaan rajaynaa inaan uga soo bixi doono sidii aan degmada Jowhar uga soo baxeen ciidamada booliska iyo nabad sugidda uga shaqeeyeen ciidanka militariga waxa loogu talagalay iyagoo inay cadawga ay baaqsadaan la dagaalamaan waxaana hadda kulli soo socda maalmaha oo soo socda waa un howlgallo ayaguna horey u sii ka doonaan ma ahayn goobtay ciidanku wareejiyaan ma aha mid ay sii joogi doonaan annaguna waxaan diyaar u nahay inaan markastaba meeshay qabtaan inaan ciidamo aan la wareegno joogno booliskeenuna aad u tabaariyo hadda ku ruhaya laakiin rumaanta waa uga mahad celiha taliyaha qaybta isaga ayaa gacanta nagu hayo aan ciidankiisa ka midna wali muddo hal sanaha waxa laga joogaa waqtigii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya qaybta 12aad Jowhar ay ku wareejisay booliska ciidamada booliska Hirshabelle halkaas sana kadib wixii aagagii shalay lagu wareejiyay iyo shaqadii ka qabsatay si aan ula ogaano ayaan maanta maxaan ku raaa kormeerka soo marnay inaga maamulka degmada iyo maamulka gobolka iyo nabad sugidda iyo maxaan ku raada booliska Hirshabelle waxaana noo cadaatay in shaqo badan laga qabtay magaalada oo ilaa waqtigan ka baxno muddo hal sano laga joogo waxaa soo baxday shaqo lagu bogaadi karo maamulka iyo gudoomiyaasha iyo maxaan ku raada taliyaha booliska Hirshabelle iyo taliyaha nabad sugiddaba kormeerkeenaas marka aan ku kuurgaleynay qaabka u socota shaqada waxa daba socday insha Allah si aan hal sano kadib aan degmooyin kale oo Hirshabelle ah ugu wareeji lahayn ciidamada booliska Hirshabelle. mas'uuliyiinta saraakiisha ayaa sidoo kale waxay kormeer ku tageen deegaanada hoos yimaada Jowhar qaarkood xaafadaha magaalada ee suuqa lagu iibiyo xoolaha. Ibrahim Cali Nuur TV-ga Universal Jowhar.